kulanti wanaagsan khiyaarey meel kastoo aad dunida ka joogtaan qodobada barnaamijkan idin kugu haynana waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa wadaxaajoodkii dhex maray dowladda dalka iiraan iyo weliba dhigeeda maraykanka waa xubinta koowaad ee barnaamijkeena xamaas oo caawa ay holiday u tahay ama faysta ay u tahay israa'iil duqaymo galbeedkeeda la beegsaday video hor lana soo daayey diyaaradda F-16 ee maraykanka uu sameeyey ee Ukraine ciidamadeedu ay ku dagaalamayeen oo soo dhacday waana tii labaad qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu barnaamijka idinkugu haynaa waa 12 bisha afraad sanadka 2025 khiyaare u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kale goor dhow idinkoo mahadsan MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaad haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada waayahay haddaba sida hadda halkaan idinkaga muuqato waxayna haddaanu idin tusno muuqaalkii u dambeeyey ee dowladda dalka iiraan iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee shirka uga qayb qaadanaya Cabbaas Caraaji waxayna idin tusno waagaag waa wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee halkaas gaaray isla mar ahaantaasna dalka Camaan wadaxaajoodkana ka qayb qaatay haddaba waxyaalaha ugu waaweyn ee wadaxaajoodka fooda lagu dareeyey intaanan u gudagelin dowladda dalka iiraan ayaa ku adkaysatay wadaxaajoodkaanu inuu ahaa mid markaas dadban meesha madaxweynaha dalka maraykanka uu sheegay inay ahaayeen wadaxaajood toosa oo markaa labada dowladood dhex maraya iiraan ayaa ku adkaysatay booskeedii ahaa inaan marnaba wadaxaajood toosa la geli dooninin balse markii war ay soo dhammaatay wadahadalku dadban uu soo dhammaaday ayaa waxaa is arkay wasiirkan oo hadda idiin muuqda halkan Cabbaas Caraaji ee arrimaha dibadda ee iiraan iyo ergeyga gaarka ee Donald Trump u qaabilsan arrimaha bariga dhexe Steve Witkoff kuwaas oo daqiiqad iyo bar wax ka yar isla taagnaa dhowr ereyna isdhaafsaday waana markii ugu horreysay muddo dheer kadib maraykanka iyo markaas iiraan ay kulan noocaas oo kale ay yeeshaan haddaba kulanka wixii diiradda lagu saaraya daawadayaal haddii aynu u gudubno arrintan waxay ahayd gogol xaar wadaxaajood adag oo soo socda waxaana laga wada hadlayay sidii xiisadda loo dejin lahaa labada wadan u dhaxaysa nabadda guud ee gobolka looga wada shaqayn lahaa isla mar ahaantaasna qaar ka mida cunaqabataynta iiraan saaran ee maraykanku uu saaray oo looga qaadi lahaa laakiin toddobaadka soo socda 19 bishan haatan ku jirnay afraad ee sanadka 2025 ayaa markaas waxaa bilaabanaya wadaxaajoodkii cuslaa oo markaas arrimaha nuclearka ku saabsan ayaa laga wada hadlaya iiraan ayaa sheegtay dhankeeda inaysan marnaba haba yaraatee wax gorgortana aysan ka geli dooninin nuclearkeeda ay sheegtay markaas inuu yahay mid markaas ay iyadu amnigii ay ku xaqiijinayso enerjiga dalkeeda iyo horumarka dalka iiraan sidaas awgeedna aysan marnaba haba yaraatee aysan ka xaajoon dooninin gantaalada ridada dheer ay haysato iyo weliba samaynta ay awood u leedahay inay nuclear bomb samaysatana aysan marnaba ka gorgortegi dooninin haddaba waxaa la isweydiinayaa daawadayaal haddii halkaa la kala taagan yahay maraykankuna uu doonayo inuu markaas iiraan aysan nuclear haba yaraatee aysan haysanin sidee ayay arrintan xeero u noqotaa xeerana loo xagtaa ilkana ay u nabadgalaan adilaahdee haddaba wadaxaajoodkan 2 saac iyo bar ayay socdeen waxay bilowdeen 3 iyo barkii waqtiga dalka Camaan ilaa iyo 5 iyo barkii ayayna socdeen waxaana xusid mudan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu yiri sidii Liibiya ayaynu doonaynaa in iiraan laga dhigo oo markaas sagxadda la soo istaajiyo iiraan ayaa arrintaas aan marnaba ka gorgortami dooninin haddaba daawadayaal wixii ku soo kordha waanu arki doonaa balse halkan waxa ka baxaya ayaa la leeyahay ballanqaadkii madaxweynaha dalka maraykanka muddo 3 jeer ka badan oo ku celceliyay Donald Trump inuu iiraan weerari doono
haddii wadaxaajoodku ay hara qaadi waayaan. dadka aad ugaga faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo weliba tan maraykanka ayaa leh waa hadal uu iska yiri oon haba yaraatee wax kasoo qaad aan lahayn. ballamo fara badan oo noocaas oo kale ah ayuuna qaaday hadda ka hor oo gebi ahaanba aan waxba ka suurtagelinin. mid iyo laba haddii aan ku xasuusiyo, xilka markuu la wareegay 20kii bishii January ee sanadkan aynu ku guda jiro 2025 ayuu sheegay haddii Xamaas aysan maalinta Sabtida ee soo socota bishii January dhexdeeda ahaa haddii aysan markaas aysan soo dhiibinin maxaabiista laga haysta Israa'iil oo dhan inuu naarta ka waraabin doono. Xamaas sooma dhiibinin, Maraykankuna tilaabo ma uusan qaadinin. sidaas oo kale ayuu haddana mar kale ku celiyey, waxba kama hagaaginin. xilligii hore ee xilka hayana waxa uu sheegay Mexico iyo Maraykanka dhexdiisa southern borders waxa la yiraahdo inuu gidaar weyn ka dhisi doono, la isku soo gudbi doonin dowladda dalka Mexicana ay markaa maalgelin doonto. gidaarkii ma aragteen, iska daa wax kale xataa lama dhagax dhiginin. marka Trump xaaladiisu waa saas ayay leeyihiin dadka sida weyn ugaga faallooda. caawa oo Israa'iil ay u tahay habeen faysta ah oo ay u dabaaldegayaan waxa la yiraahdo pass over oo mar walbaba xillidan oo kale sanad walba la qabto ayaa waxaa lagu soo warramayaa sida ciidamada Israa'iiliintu ay sheegeen ururka Hamas in ay markaas duqeymo ka geysteen koonfurta Israa'iil ay duqeymo ka geysteen, taas oo markaas sababtay wiishka inuu qayliyo kumanaan dad ana markaas inay kala yaacaan sababtay. dhanka kalena Hamas waxa ay soo bandhigeen ninka sargaalka ah ee markaa ciidamada Israa'iil ka tirsan ee dhalashada dalka Maraykanka iyo kan Israa'iilba haysta ee Alexandra la yiraahdo ayay soo bandhigeen oo aad iyo aad u cabanaya, taas oo markaas ay u arkaan xukuumadda Israa'iil ay sheegtay in ay markaa tahay dagaal maskaxeed oo ba'an oo markaa lagu soo qaaday Israa'iil xilli holiday lagu jiro, duqeymuhuna ay u dheer yihiin. meesha dadka ay leeyihiin eeladoodii la haysto waxaa noo muuqata inuu nool yahay, waxaynu doonaynaa inta aan duqeymaha lagu dirinin ama Xamaas aysan khaarajinin si degdega in aynu markaas ogaga gaarno. haatana daawadayaal, halkaas iyo Ruushka. diyaaradda F-16 ee Maraykanku uu sameeyey ayaa mar kale soo dhacday maanta, aad iyo aadna loo hadalhayaa. madaxweynaha dalka Ukraine ayaana ka hadlay. haatana baaritaan ayaa socda, hadallo iskhilaafsan oo khalkhal uu ka muuqdo ayaana markaa kasoo baxaysa laamaha ammaanka iyo weliba xukuumadda dalka Ukraine. waana diyaaraddii 20tii ka horreysay bishii August ayay ahayd, ayagoo markaa bacda laga furay ayadana afka ciidda loo daray. meesha Ruushka uu isha ku hayo inuu la wareego Odessa, dagaalkuna uu markaa gabagabo u taagan yahay. sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada dalka Ruushka ayaa sheegay jabka Ukraine soo gaaray ee dagaalka ka soo gaaray 3 sano la soo dhaafay in aysan weli taariikhda aysan soo marinin dalka Ukraine dhow ee la xasuusto. si kastaba daawadayaal, haatee dhanka kalena Maraykanka ayaa waxa uu sheegay xuutiyiintu gantaalada ay ku weerarayaan Maraykanka inay yihiin kuwo markaas qaybahooda u aad u jaban yahay, ayaguna markaa ay ku weerar tegayaan kuwo 30 milyan oo qaar ka mida lasoo riday. shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 baloog oo kala ah A iyo B. dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses. dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarasa quraan, supermarket, wiish xawaaro sare leh, kaamirooyinka ammaanka, CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda.